inaanu ka hadalno dhowr arrimood oo taabanaya masiirka ummadda Soomaaliyeed sida dawlad dhiska wax wada lahaanshaha iyo dagaalanka argagixisada ee ka socda dalka gudihiisa. waxaanu doonaynaa inaanu iftiimino fashilka xukuumadda talada haysa ay dhex muquuranayso. ugu horreyn waxaanu bogaadinaynaa ciidamada qalabka sida ee kula jira kooxaha argagixisada dagaalka gudaha iyo dabadaba meel kastoo ay joogaan. waxa ay muujiyeen geesinimo, waxa ay muujiyeen dadaal, waxayna mudan yihiin inay isgarab taagaan. mudanayaal sida aad ka war haysaan argagixisadu waxay u soo bahaysatay dalkeena iyagoo doonaya inay isku fidiso deegaano waaweyn, waana khatar ku soo fool dalkeena oo taabanaysa masiirka dalkeena. loona baahan yahay in aynu meel uga soo wada jeesano inagoo Soomaaliya meel kastoo aan joogno. sidoo kale waxaanu doonaynaa inaanu tacsi ka dirno weerarkii bahalnimada lahaa. waxaa xaqiiqo ah inay isu bedeshay maalin goosato hadba meesha ay doonayso iyadu oo danaheeda gaarka ay ka helayso u dhaqaaqda. qaranna laguma dhiso qorshe lala soo toosay ee waxaa lagu dhisaa nidaam cad iyo kaas oo iftiiminaya meesha la doonayo iyo meesha loo guurayo. mudanayaal waxaa xaqiiqo ah in xukuumaddani ay gashay 20 heshiis oo dhammaantood isburinaya. waxaa xaqiiqo ah in xukuumaddani subax ay ku ummadda Soomaaliyeed habeen iyo maalinba ay oranaysay Itoobiya waa cadowgeena, subaxii dambana la arkay iyadoo wadooyinka u xidhan yihiin ra'iisul wasaare Itoobiya. waxaa xaqiiqo ah in xukuumaddani ay gashay in ka badan 20 heshiis oo ay aragtay aysan jirin. waa xukuumaddii ugu tayada liidatay abid ee soo martay dalkeena hooyo. shacabka Soomaaliyeed ayaa markhaati ka ah in dhammaan xafiisyadii iyo wasaaradihii dalku la shaqeynaysa aysan jirin, wasiiradiina ay telefoon ku shaqeynayaan, xafiisyadiina ay ka guureen. sidoo kale xukuumadda maanta jirta waxay ku fashilantay siyaasadda arrimaha gudaha iyadoo qaybo ka mid ah dawlad goboleedyadii dalku ay tageen, kuwa kale dalkuna ay ku joogaan sharci darro ah. dibudhiskii Soomaaliyeed kadib lama arag xukunka in la iska joogo xukuumaddan ka hortow. sababtana waxa weeye xukuumadda talada haysa ayaa doonaysa inay dalka ku sii joogto xukunka si sharci darro ah. xukuumaddani waxay laashay wixii heshiiska lagu ahaa sida dastuurkii dalka, waxay burburisay federaalismkii, waxay diiday wadaxaajood, waxayna go'aansatay siyaasad la yiraahdo loo joojin maayo. waxay dib u celisay 30 sano ummaddii Soomaaliyeed. waxaa wax laga xumaado ah in madaxdii dalka loo dhaartay ay u dhaqmayaan sidaas. xukuumadda talada haysa waxaa xaqiiqo ah inay tahay tii ugu musuqmaasuqa badneyd abid ee dalka soo marta. naas nuujinta, ehelka, qaraabakiilka, eexda, xaraashka danta guud, waxaasoo dhan waxay niyad jabiyeen ummaddii Soomaaliyeed iyadoo dhallinyaradii dalku ay rajabeel ka taagan tahay dawladnimada. mudanayaal intaa oo fashil oo aanu sheegnay waxaa sabab u ah xukuumaddii xafiisyadii dawladda oo isku milmay. waxaa fadhiid noqday dhammaan xafiisyadii xukuumadda. waxaa isku milmay saddexdii dhadhaar ee dawladnimada, garsoorkii, fulintii iyo sharci dejintii. waxaa taladii dalka gebi ahaanba la wareegay madaxweynaha. isaga ayaa ra'iisul wasaare ah, isaga ayaa wasiir ah, isaga ayaa agaasime ah, isaga ayaa agaasime waaxid ah. dalkii wuxuu noqday isaga iyo keligiisa. sidaa daraaddeed waxaanu doonaynaa maanta inaanu halkan ugu gudbinno talo ku socota madaxweynaha dalka. mudane madaxweyne, 2 jeer ayay ummadda Soomaaliyeed ku dooratay darajada ugu sarreysay dalka oo ah madaxweyne. maanta hal lagasi Soomaali uga tag oo iscaasi. waayo intii aad xilka haysay in badan ayay ummaddu ku tiri talada dhulka dhig, ka shaqee midnimada, wadajirka iyo inaad Soomaali isku hayso, laakiin waa dhageysan weyday. inaad dhahdo waan fashilmay oo waan iscasilay waxay ku tahay guul siyaasadeed. waxaad noqonaysaa hogaamiyihii ugu horreeyay abid ee taariikhda qirta fashilkiisa. mudane madaxweyne, noqo hogaamiye suurtageliya waxaan suurtagal ahayn oo iskaga taga xilka si shacabka Soomaaliyeed loogu doorto oo baarlamaanku ugu doortaan madax karti leh oo ka samata bixisa xaaladaha uu dalku ku sugan yahay cakiran. mas'uuliyadda ugu weyn ee ku saarneyd waxay ahayd badqabka dalkaaga iyo dadkaaga. mana jirto maanta meel Soomaali u badqabta oo way ogtihiin. ugu dambeyntii waxaanu doonaynaa inaanu u dirno guddoonka baarlamaanka baaq ku aadan xildhibaan Xabiib oo ayaamahan xasaanadiisa uu leeyahay waan ka tuurayaa xilka. sida aan ognahay ummadda Soomaaliyeed xildhibaan Xabiib waxa uu habeen iyo maalin bay isu taagay inuu ummadda Soomaaliyeed u bandhigo musuqmaasuqa ay sameeyso xukuumaddu. taas waxay sababtay inay u adkaysan waayaan oo ay dhahan xukunka ayaanu ka ridanaa. sharciyanna uma leh, baarlamaan weynaha ayaa iska leh. mudane guddoomiye, haddii aad isku dhaqdo arrintaa xilkaaga ayaad ku waayi doontaa. waana mahadsantihiin.